waxaa xalay oo ay taariikhdu ahayd dagaalka bisha shacbaan ilaahay subxaanahu watacaala uu doortay ramsi ka mida rumuusta jihaadka ee soomaaliya sheekh weyn oo ka mid ahaa culimmadii jihaadka soomaaliya muddada dheer ka waday runtiina ku lahaa baac weyn ku lahaa dacwada iyo jihaadka soomaaliya khaasatan iyo jihaadka ka socda caalamka guud ahaan sheekhaas oo ah sheekh xasan cabdullaahi xirsi oo dadka badankiisa u yaqaanaan sheekh xasan turki sheekhaas ayaa xalay ku geeriyooday magaalo ka tirsan jubbooyinka oo lagu magacaabo hargeysa yarey ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa inuu ka aqbalo camalkiisii muddada dheer uu soo waday ee uu ku koryeelayay shareecada ilaahay tabaaraka watacaala sheekha haddaanu wax yar ka hadalno taariikhdiisa waxa uu ku dhashay magaalada qabri dahare markii sanadku ahaa 1942 sheekhu meesha uu ku dhashay sida dadkoo dhan ay og yihiin waxaa weeye meel ku jirta gacan gumaysi cadowga nasaarada ah ee etoobiyana ay gumaystaan ay haystaan sheekhu markii uu soo barbaaraba ugu horreysayba wuxuu bilaabay in cadowga gumaysiga ku haya deegaankiisii iyo meeshii uu ku dhashay inuu la jihaado isagoo bilaabay halganka jihaadka u dhowaan qaangaarkiisii 1960kiiba dagaaladii u dhexeeyey xabashida iyo ummaddii soomaaliyeed u dhexeeyey ayuu ka qayb qaatay kadibna waxa u soo wareegay magaalada muqdisho iyo dhinacan soomaaliya ayuu usoo wareegay isaga oo macaahidii markaa jirtay ee diiniga heeday haleelay kadibna sheekhu wuxuu aaday waddanka sacuudiga isagoo halkaa kasoo dhigtay jaamacad shareecada islaamka ah kana soo takharujay oo kasoo baxay aduu xilli ku aadan 70-mayadii kadibna wuxuu kusoo laabtay dhulkii soomaaliya oo halkaa uu ka bilaabo marka inuu dacwadii uu fidiyo iyadoo dalkii ay haysatay dawlad aan ku dhaqmin shareecada ilaahi tabaaraka watacaala oo maxay ahaday shuuciyada ay haysatay haddana wuxuu bilaabay inuu dacwadii iyo fidiyo inuu dadka ilaahay diintiisa gaarsiiyo isaga oo baac weyn ku lahaa dadkii qaxootiyaalka ay kasoo qaxay ee dhoolka etoobiya gumaysato iyo meelo kaleba ee hiiraan in badan oo kamid ay kusoo urureen inuu halkaa dacwadii ka fidiyo diinta ilaahi tabaaraka watacaala u gaarsiiyo isaga oo xilligaa isagaa runtii jihaadka ku jiray oo aad ula dagaalami jiray hay-adkii tansiiriga ah ee gaaladu ay lahaayeen aad ula dagaalami jiray oo waxa weeye juhd iyo xoog ku bixiyey in hay-adaha gaalada talyaaniga ee tansiirka katoliga waday inuu marka runtii dadkii uu aad iyo aad maxay ka celiyo oo ka hor istaago isagoo dhinaca kalena dacwadii iyo diinta xaqa ahayd u sheegayey kadib markii ay dhacday shuuciyadii ay dhacday oo ilaahi subxaana watacaala uu riday sheekhu wuxuu bilaabay markaa inuu haddana dacwadii uu sii labalaabo isagoo runtii ku daray dacwadii qawlkan ku daray midii gacanta heday oo jihaadkii ku daray sheekhu 90-yadiiba wuxuu ahaa baleecadii ugu horreysay mujaahidiinta ee jihaadka ka bilowday dhulka soomaaliya ayuu ka mid ahaa markii maxay inxiraafeen qaar ka mida markaa xarakaadkii jihaadiga ee sheekhu markaa uu ka tirsanaa ay inxiraafeen oo ay ka tageen waxa weeye hadafkii iyo manhajkii jihaadiga ay ka tageenna sheekhu wuxuu ku adkaystay oo uu laasimay dariiqii jihaadka iyo dacwadii ayuu laasimay isagoo oo runtii khaarijka iyo banaankana u safray oo u tegay walaalihii islaamka mujaahidiinta u tegey oo waxa weeye 2 mar walaalku wuxuu kula soo kulmay dhulka afghanistan mujaahidiintii caalamka ayuu kula soo kulmay oo usaama uu hogaaminayay marna wuxuu kula soo kulmay meesha la yidhaahdo sudaanna mar ayuu kula soo kulmay walaalku ilaahi subxaana watacaala ka aqbala camalkiisii waxa weeye wuxuu ka mid ahaa raggii gaaladii maraykanka runtii maxay ahayd dacarta leefsiiyey magaalada muqdisho raggii muhaajiriinta ayaa yimiday raggii soo dhoweeyey oo runtii asagu hayay in badan oo ka mida waxa weeye garab iyo gacanna u ahaa ayuu ka mid ahaa isagoo runtii rag badan oo muhaajiriina isagu markaa ma uu yahoy u ahaa
markii maxay ahaday ilaahay subxaana watacaala maraykankii uu jebiyey uu maraykankii dib u cararayna waalku jazaahu allahu khayr wuxuu bilaabay inuu tababaro runtii dhalinyaro fara badan oo waxa weeye jihaadka uu kusoo biiriyo isagoo furay macasarkii lagu magacaabi jiray kamboni oo ka furaa walaayada islaamiga jubbooyinka isaga oo runtii waxa weeye soo saaray ajyaal fara badan oo ilaahay subxaana watacaala ummaddan uga kor qaaday dulmigii iyo waxaweye ku hayeen nimankii hogaamiye kooxeedyadaha isaga oo markii dagaalkii uu ka bilowday magaalada muqdisho ee lagula dagaalamaya nimankii hogaamiye kooxeedyada runtii usoo gurmaday oo dhalinyaro inta aad u fara badan macal isaguna uu ku jiro ay usoo gurmadeen walaalahoodii mujaahidiinta ahaa ee muqdisho joogay halkaana ilaahi subxaana watacaala uu sabab uga dhigay mujaahidiinta oo isbiirsaday in cadowgii maxay markaa maraykanku uu soo dirsaday ee hogaamiye kooxeedyadaha ilaahi subxaana watacaala uu meesha ka bixiyo kadibna markii ay soo duushay amxaaradu waxa weeye dhulkii iyo meel kasta isku fidisay wuxuu mar kale dib u bilaabay haddana inuu haddana dhalinyaro kale uu soo saaro oo jil cusub oo haddana amxaarada kiciya uu soo saaro isaga oo runtii rag badan oo uu soo saaray ay magaalada muqdisho kula dagaalameen amxaarada ay kula dagaalameen kadibna waxa weeye ilaahay subxaana watacaala nasrigiisa guusha uu keenay oo amxaarada dulaysan ay ka baxdo magaalada muqdisho ay ka baxdo marka ilaahay subxaana watacaala amxaaradii bixiyey amxaaradii runtii waxa weeye waxay u baxday daat ahaan laakiin waxay samaysatay gacmo fara badan oo qaarkood ay soo dhex maraan mujaahidiinta ay soo dhex maraayaan in mujaahidiinta dhexdooda la isku diro oo waxa weeye dhibaato laga rido ay aad iyo aad gaaladii uga shaqeeyeen sheekhu marka isagoo mar kale runtii rabay in mirihii uu soo tacbay iyo waxa weeye shaqadii dheereed ee muddo dheer uu kusoo jiray inaysan baabi'in cadowguna uusan fursad u helinin ayuu sheekhu haddana jazaahu allahu khayr wuxuu ka shaqeeyey in mujaahidiintii haddana ay midoobaan isaga oo marka casarkii kamboni ama jamaacadii kamboni marka isaga uu odaga u ahaa isaga iyo saraakiishii ugu sarraysay ay runtii maxay ahaday iyo xarakadii xaraka shabaab mujaahidiin marka ay midoobaan isaguna uu ahaa runtii ciddii ka shaqaynaysay oo midaynta ilaahi subxaana watacaala uu sabab uga dhigay halkaana marka waxa weeye runtii dad badan oo marka gacan amxaaro ahaa oo waxa weeye gacan keeyaati ahaa oo rabay inay soo dhex maraan marka mucaskarka asagaa soo dhex maraan rabaana markii sheekhu uu marka kala hormaray saqdiyada uu ka yeeshay in mujaahidiintii uu mideeyo inay marka u cunto nuugeysay oo marka ummadda muslimiinta la mideeyey ay ku margadeen kadibna arrintoodii ay caddaatay oo fashil ay ku dhammaatay maantana ay gacmo gaala noqdeen runtii oo iyagii ay mujaahidiintii maanta iyaga ay la dagaalamayaan sheekhu marka halkakaa dheer ee uu soo maray ilaahi subxaana watacaala diintiisa uu ka rafcinayey muddada dheerna uu kusoo qaatay waxay keentay in cadowgii maxay ahaday gaaladu ay dhahaan marka maxay ahaday ay ku daraan waxay ku tilmaameen liiska argagixisada waxa keenana ay tahay waxa weeye inay arkeen marka jihaadkiisa iyo dacwadiisa iyo xawliga ay ku socotay inay arkeen ilaahi subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa sheekha in naxariista janna uu siiyo